بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad waa idin salaamayaa aniga oo magacayga ku hadlahaya iyo magaca inta igu caqiidada ah oo qalbigoodu uu saafiga yahay oo ay danqinayso arrinta diiniga ah ama masiirka ummadda Soomaaliyeed. waxaan si boqolkiiba boqola uga soo horjeednaa aan u diidanahay in Abu Mansuur Robow xilka loo magacaabay ee arrimaha diinta iyo awqaafta waa ka soo horjeednaa, waana khalad. waxa weeye waana damiir xumo iyo tijaabo la tijaabinayo ummadda Soomaaliyeed inay weli wax damiir leh ay ku jiraan, ama dadkii ahlu diinka ahaa ee ahlu xaq ahaa inay weli nool yihiin, ama ay isku xiran yihiin, ama ay muujin karaan karti ay uga hor imaan karaan wax allaala wixii diinta islaamka ama bulshada Soomaaliyeedba dhibka ku ah. waa ka soo horjeednaa, raallina kama nihin, marnaba aqbali mayno. maxaan u diidaynaa marka? ma waxaan u diidaynaa qof Soomaali ah oo mudan xil in loo dhiibo masayr aan ka masayrsannahay miyaan u diidaynaa? mise waxaan u diidaynaa sifo sharci ah aan ku diidaynaa? waxaan ku diidaynaa waxa weeye waa sifo sharci ah. waxaan u diidayno waxa weeye waa shaqsigii ummadda Soomaaliyeed xasuuqay ee kumanaanka kun ee gabdhaha iyo wiilasha isugu jiray, ardadii haddii alla ku oran yahay diinta ee dalkan wax u baratay xasuuqay, hooyooyin badan xasuuqay, dad badan oo masaakiina sabab u noqday in la gowraco. oo ficilkaas faaxishka ah oo aadka u liito, aadka u xun, oo wuxshinnimada ah, oo dalqalatanimada ah ninkii aas-aasay buu ahaa. aas-aasayaashii qaybtii kii koowaad labaad buu ahaa. ma ahan markaan leenahay waa aas-aasayaashii al-shabaab ee khawaarijta markaan dhahayno asaga afkiisa ka sheegtay, qof walbana waa ogyahay. marka ninka noocaas oo kale ah oo ummadda Soomaaliyeed soo xasuuqay oo dhibaateeyey, in maanta la yiraahdo arrimaha diinta iyo awqaaftan idiin dhiibay, taas waxa weeye waa dhurwaa hilba ku raro. hadda ka horna waxaa la yidhahdaa baalkii dhurwaa ahbaa wuxuu yidhi caydaa la iga badiyee magac fiican ha la ii bixiyuu yidhi. magac fiican maxaa lagu bixiyaa? maxamed amiin ha la ii bixiyuu yidhi. markii dhowr habeen looga tegay hal iyo nirig suuci dambu macnaha wuxuu ka goostay nirigtina faruyuhu ka goostay, hashina haddii alla kuuran candhadii buu ka goostay. magaciina wuu rabaa in loo baxsho. hadhowtii buu dhinac inta u cararay dhuruq dhaaruq buu wuxuu yidhaahday war maxaa kugu dhacay? maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaabi? macnaha waxa weeye hadda ninka noocaana aad u dhiibaysaan diinta waxa weeye seeftii iyo mindidii ummadda uu ku gowrici lahaabaa loo fududaynayaa. shacabka inta damiirka ku jirana waxaa la rabaa in xabad xabad loo siiba, hadhowtay laga soo reebo dad wax ay yihiin aan jirin, oo diinna aan shuqul ku lahayn, caqiidana aan shuqul ku lahayn, caqlina aan lahayn. meel allaale meeshii loo hogaamiyana marxaba lahayo cabsida ay ka badatay oo wadna kurkura. dad noocaasa in laga soo reebaa la rabaa. Soomaaliya waa loo tashaday, gaalo iyo khawaarij intaba way isu bahaysteen. marka marnaba raalli kama noqonayno, raalli ka noqon mayno. waana khalad, waana gaf, waana macnaha xaraam in laga dhigaa ninkaas arrimaha diinta iyo awqaafta. waxaan u leenahay saas waxa weeye waxaad garanaysaa nin ummaddiisa u xasuuqay
in haddana wejigiisa uu ka hor muuqdo ummaddii dhibaato wey. nebiyullaahi maxamed baa hadda ka hor waxa dhacday markii xamza oo nebiga adeerkiisna ah walaalkiisna xagga ridaaca walaal bay ku yihiin, dhinaca kalena waa adeerkiis. xamza macrikadii dagaalkii beder ayaa waxaa dhacday gabar la yidhaahda hinda oo gaalo ah ayaa waxaa lagu dilay aabbaheed iyo adeerkeed baa lagu dilay. gabadhii hinda ahayd yacni waxaa marka ay haysatay oo addoon u ahaa waxshi mid la yidhaahdo oo kadib dee soo islaamay baa wuxuu ahaa addoon u ahaa. waxshigii marka waxay ku tiraahda niyahow haddii xamza aad beerkiisa ii keentay ama aad disheed xor baa tahay. hadda nin addoon ahoo xor aa tahay la yidhi wuxuu isku dayahayaa wixii uu ku xoroobi lahaa inuu yacni soo xasliyo oo sugo buu isku dayahayaa. waxaa dhacday marka macrikadii dambe oo uxud ayaa waxaa dhacday ninkii waxshi ahaa in uu dilo asadullah, yacni libaaxii ilaahay iyo rasuulkiisa libaaxii ninkii ahaa oo loogu magacaabay oo xamza ahaa oo geesiga ahaa oo 100 aan indhaha u qabsan ayuu dilay. inta gaaday buu dilay. markuu dilay gabadhii hinda ahaydna beerkiiba intay ka dilaacisay bay qaniinto cuntay, meeshaas yacni ku rogtay. nebiyullaahi maxamed sidaas yacni suurxumayntaas iyo dilkii adeerkiis dhinacna walaalkiis ka ahaa xagga ridaaca waxay ku noqotay murugo aan caadi ahayn bay ku noqotay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh. dhaawicii qalbigiisa rasuulka gaaray waxshi marka waxaa dhacday maalinkii dambe oo daa'if qolooyinka reer daa'if ay soo islaamahayeen ayuu soo raacay waxshi, waa ninkii xamza dilay. markii uu soo raacay ayuu nebiga u hor yimid salawaatullaahi wasalaamu calayh, ilan waa nin yacni islaamnimadii qaadanahaye. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhaahday anta waxshi, adigu waxshi miyaa tahay ninkii waxshi ahaa? markaasuu yidhaahda nacam waxshi baan ahay buu yidhi. anta qatalta xamza, yacni anta qatalta xamza ninka dila ma adiga buu yidhaahday. marka wuxuu ka xishooday inuu dhaho ninkii xamza dilay baan ahay. markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sida warka kugu yimid akhbaarta siday kugu soo gaartay weeye macnaha. markaasuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhaahday hal tastadiic an tugayiba wajhaka cani, yacni iga leexi, yacni ninka macnaa saas la su'aalaya su'aashaasna macnaha waxa weye ma awoodaa inaad aniga adigana kala leexisid wey. laakiin ujeedku waxa weeye niyow aniga adiga wejigeenna kala dadab, wejigeenna kala ilaali. yacni waxshiyow hadda wuu soo islaamay ogow, ilaan al islaamu yahdimu bimaa qablah, islaamnimadu wixii ka horraysay way dumisaa. qofka hadduu gaal ahaa hadduu 100 soo dilay markuu qofka soo islaamo finish waa toobad keena qofkaasu islaamnimadii baa burburinayso sidii cunug xala dhashay oo kale u noqonayaa wakaasaa khalaas qof nadiif u noqonayaa. hadda ogow asagoo qof nadiifa noqday oo dambi aan loo haysan oo dhiig aan loo haysan oo yacni wax kale aan lagu haysan xamzuuna dilay. ninka noocaasa buu nebiyullaahi maxamed wuxuu yidhi anigii adiga wejigeenna kala dadab buu yirniyo, wejigeenna kala leexi, ha iskaaya tusin, macnaha xoogaa iga dadab buu yidhi. waa khayru khalqillaah. marka maxaa mooda marka 100,000 oo Soomaali ah ninkii laayay oo amray oo haddii alla kuuran yahay gablamiye hooyooyin badan aabbayaal badan yacni gurigooda mugdi geliyey, awlaad badan baaba'shay, dad badan oo mustaqbal lahaa dilay. maanta yacni inuu ummaddii la hor keeno xaq uma lahan, in ummadda laga hor leexiyuba aha. sharciyan wuxuu xaq u lahaa waxa uu mudan yahay in la mariyo. shareecada in la saaro maxkamad in la soo saaro oo shareecada islaamka wixii ay yacni ninkaas ku xukumayso baa la rabay in la mariyo. lama marin. ninkii inta la xiray baa xabsiga inta laga soo daayay baa waxaa la yidhi dhiiggii ummadda Soomaaliyeed oo aad baabi'isay, dadkii aad qubuuraha ku dartay, hooyooyinkii aad gablamisay, yacni guryihii aad dumisay, yacni horumar la'aantii aad samaysay, waxaan kugu abaalgudaynaa
oo aan ma aragtaa kaaga dhaqaynaa yacni dhiiggii faraha kaa gaaray waxaan kaa dhigaynaa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta taasu gaf bay waxay ku tahay diinta islaamka gaf bay waxay ku tahay ummadda Soomaaliyeed gaf bay waxay ku tahay jiilka soo koraya oo la rabo in lagu barbaariyo la tuso war al-shabaab wuxuush bay ahaayeen khawaarij bay ahaayeen dad aad u xun bay ahaayeen dadka laayay ahaayeen dad diin laawayaal ahaayeen dad yacni haddii aan la kuuraya aan dhaqan islaam iyo mid gaalmidna lahayn bay ahaayeen waxna aan reebin dadkii la rabay in la baro haddiiba hadda la tusaayo ninka inuu inta boqolaal soo dilo uu iska noqonayo si dhib yar wasiir uu iskaba noqonayo hadda nin walba bari seeftu inta qaato iyo wuxuu jafahayaa ummad fara badan markaasuu leeyahay suu wasiir u helo haye anna waa soo noqday marka ma dhiigga ummadda Soomaaliyeed baa lagu barmoosaa oo jaga lagu helaa oo horumar lagu gaaraa oo dhaqaale lagu sameeyaa oo sumcad lagu helaa mise waxa weeye dhiigga ummadda Soomaaliyeed waa shay la rabo in la ilaaliyo cid alaale cidii ku xadgudubtana yacni haddii aan la kuurayn waajibkeeda in la mariyo ay xaq u leedahay war diinta islaamka ha laga xishoodo war ummadda Soomaaliyeed ha laga xishoodo war dadka damiir waxaa la tijaabinayaa ummadda Soomaaliyeed inay damiir leedahay war damiir haddaad leedihiin oo aad dhiig leedihiin oo aad danqanaysaan u istaaga diinta islaamka ninkan ilaahay ka furtay oo ummadii laayay oo baaba'shay waxa weeye waa in laga soo horjeestaa baarlamaanka waxaan leeyahay arrinka gaashaanka u duruura diida niman baa waxay ku leeyihiin hadda waa nin muwaadin ah yacni xaq buu u leeyahay inuu isa soo sharaxo xuquuq see u leeyahay ninka haddan kaaga sheekeynaya nabiyullaahi maxamed waaye khayru khalqillaahi wey waxshigii oo adeerkiis dilay buu wuxuu yidhi aniga adiga wejigeena kala leex wejiganaga kala leex nin marka ummaddii soo laayay ummaddii baaba'shay in ummadda la hor keeno la dhaho hoggaan baa ummadda u tahay war diinkaasu diinkee wey dhaqankaasu dhaqankee wey dhaqan ma ahan diinna ma ahan ilaahayna kamida xishoon ummaddiisana kamida xishoon mideeda kale waxyaalaha aan la yaabo waxaa ka mid ah wuu toobad keenay see ku toobad keenay toobadkeenku ma waxa weeye ma inaad inta boqolaal kun oo qof dishid astaghfirullah miya ma ahan saas toobadkeenku saas ma ahan toobadkeenku wuxuu rabaa dad baa dishay dhiig baa qoorta kuu suran waa in lagu dilaa oo xad lagaa oofiyaa ama haddii aan la kuuranayaa ummaddu markaas ay inta ama ku cafiso mag aad bixisaa markaasaad waxaad noqonaysaa dhankii bini'aadanka waxaad ka noqonaysaa nin wixii ilaahay uu jideeyey maray baad noqonaysaa laakiin dhiiggii aad gashay iyo ilaahay iyo xisaabtankiisa iyo howlahaas iyo aakhire iyo waa howl aday kuu taalla laakiin markaasuu qof toobad keena oo xuquuqdii lagu lahaa maray waddadeedii maray weeye macnaha haddii aan la kuurayn nabiyullaahi waa hadalladiisaan maqlahay asoo dhahaya nebiga waxaa weeye ilaahay waan u toobad keenaa 100 jeer ama 70 jeer tiradana isma diidaysee markaa sidaas darteed waan toobad keenay war saas wax toobad keen maaha wuxuu waa caqiida waxaad aaminsan tahay waa caqiida faasida ah wey waa caqiida aad u xun wey macnaha waxa weeye qofku khaariji markuu yahay waa caqiida xun aad u liidato waa caqiidadii xumayd ma ka soo baxday maya kamuusa soo bixin caqiidadii xumayd weeye wax dadka lagu baabi'inayo waa caqiida qofka wuxuu aaminsan yahay ma weeye shiicada waxa lagu yaqaanaa tuqya waxyaalaha tuqyada ah shiicadu waxa weeye inuu ninka shiici yahay inuu isbanaan keeno shiican ahay kuma dhahayo waa is ilaalinayaa wuxuu ku leeyahay anigu ma ahi inkiraad buu raaxda kaaga qaadaya hoostana balaayadiisii buu ka wataa tuqyaa la dhahaayo xaggooda waaba ka waajib inaad isqarisidba marka tanoo kale waa tuqya annaga waxaan u aaminsannahay inay tahay tuqyo lafdigeeda oo ilka abeeso hoostay ka wada xiriiraan ah oo loogu talagalay Soomaali in lagu dabargooyo inay tahay baleenkan mindida hal mar gacanta ii geli inay tahay awoodda hal mar ii dhib inay tahay marka ayada ah sida aan rabaan yeeli laakiin qofku waxa weeye qofka noocaas oo kale ah looma dhiibo meel
mansiba looma dhiibo weliba waxa weeye qofka magaalo ku dambaaba shariicada islaamka macnaha dunuubta caadiga ah yaaba qofka waxa weeye oo inta yani hadda laga oofiyey baa xataa waxaa la sameeyaa laga fogeeyaa magaaladiisii laga masaafuriyaa ummadda iyo asaga sayse isu arag baa la masaafuriyaa yani qof dhiig galay iska badaaba qof yani magaciisii ah oo dunuub yar galay oo xaddooda laga oofiyey baa laga fogeeyaa magaalada oo laga bixiyaa magaalada si macnaha asagii iyo dadkii ay isu hilmaamaan maxaa yeelay mar allaala markuu ka hor imaado waxaa laga yaabaa qofkii inuu asaga ku dhibtoodo dadka ay dhahan kan waa kii wey ma aragtaa kii balada hayo saa iyo saa sameeyo waa kan ama asagii xumaatadii uu dib ugu noqdo ilaa meel balaayahu uu wax ka bartay weeye marka in asaga qalbigiisii uu isbedelo dhaqankiisii uu isbedelo ummaddii ay ilowdo yacni haddii alku bulsho kale ay yimaadaan meel kale uu ku biiro yacni saasaa la rabaa ilaa ardada uu ku macni dambaabay inuu ka fogaadaa la rabaa xaggee lagu arka marka nin ummaddii uu shalay laayey oo ummaddii uu shalay baabi'iyey oo ummaddii dadkoodii oo hooyooyinkii uu gablamiyey iyo carruurtii mugdiga uu geliyey oo macna mustaqbalkoodii u baabaashay in la hor keeno oo TV-ga loo soo dhigo la dhaho ninkan wey ninka diinta aad ka raacanaysaan war diinta al-shabaab maanta laga raacanayo maxay tahay soo diintii ma ahayn dadka in la dila ahayd ah ma diin kale leeyihiin in diin dadka la laayo oo yacni qof kasta aan ayaga ahayn oo fakarkooda qabin oo gaal inuu yahay oo in la dilo soo kaas maahan diintoodu soo mansuur maahan ninka dhahayo qof nool ha keenina qof nool ha keenina waa duuban tahay codkiisa waa yaallaa marka waxaan leeyahay dowladda xasan sheekh waxaan leeyahay madaxweyne haddii aad shakhsi madaxweyne u tahay hawsha aad wadatid ku soco shakhsi haddaad madaxweyne u tahay hawshaada wado laakiin haddii aad shacabka madaxweyne u tahay shacabku ma oggola marnaba ma oggolaanayo kaa yeeli maayaan mana aqbalayno al-shabaab waxaa lala diriiraanagayne hawshu ma waxay noqotay al-shabaab ha la koriyey noqotay marka oo dadka ha la laayo oo haddii alla kuuran yahay maalintii ninkan loo dhiibo waa la ogaan doonaa kolley ummadda soomaaliyeed wixii nool un waa arki doonaan macna weyn baa meeshan ku jira ogaada waxaan al-shabaab la leeyahay alqaacida la leeyahay daacish la leeyahay maxaa magacyada waxaanoo dhan gaalaa soo abaabushay gaalo ayaa soo khawaarija nimanka wahaabiyada ah waa xaqiiq waa taariikh weeye ma aan wax la qarinayo waa taariikh weeye gaalaa soo abaabushay waxaana loogu talagalay islaamka in lagu dumiyo islaamka in lagu dhibo islaamka in lagu baabi'iyo weeye waxaan bidcaho balaayada noola keena oo balaayada fidnada ninka aad shalay ogeyd 10 magac buu la baxayaa ninka ahlu sunnaha ahaa ahlu sunnimadiisii oo ilaahay iimaankii uu ku sugay oo balaayo hunguri ah iyo macni meel daran ilaahay uusa ka ridin ahlu sunnimadiisii buu joogayaa ma arkaysid nin ahlu sunna ah oo 12 magac oo kala gedisan oo ummadda lagu baabi'inayo oo diinta looga been sheegayo arki maysid mana soo arkaysid abadan ma laga yaabo ahlu sunna halkaasay taagan tahay waa dadka ahlu xaq ahaa dalkan ahlu sunna iska leh dalkaanu dal Soomaaliyeed wey dal Soomaaliyeed markuu yahay caqiidada dalkaanu ay leedahay waa caqiidada ahlu sunnati wal jamaa caqiida aan taa ahayn kama soconayso Soomaaliya madhabka waa madhabu Shaafici madhabkaas madhab aan ahayn ka socon mahayo Soomaaliya waa sidaas wixii inta ka sokeeyo Soomahan hadda hal islaayo way hal islaayo waxa la sheegay xilligii Allah naxariisay Maxamed Siyaad Barre ayaa nimankii shiicada ahaaba waxay dhahaan Iiraaniyiintii wax badan ba idin qabanaynaa saanaan yeelaynaa masaajidda ka dhisano saan yeelno warnimayho wuxuu yiraahday halkaas waxaana anaga sunniye diin lagu dirira ma doonayno meeshiina naga jooga waxaad noo samaynaysaan ma rabno meeshii naga taga maxaa yeelay hadday ku soo galaan Soomaali islaynaysa waxa bilaabanayso shiica iyo sunni islaynay dhibaato
marka dadku waxay ku fiican yihiin caqiidadaas ahlu sunnati wal jamaaca inay dadku haystaan waxay ku fiican yihiin madhabka shaaficiga inay haystaan halkaas wax khilaafa iyo wax dhibaata iyo wax isnaca midna ma lahan marka waxaan leeyahay waa ku celinayaa baarlamaanka waxaan leeyahay haddii aad ummadda Soomaaliyeed magacooda kullee kuma fadhidaane jeebkiina iyo waxa liidin dhiibay hunguri iyo musiibo baad meesha u fadhidaane haddii aad ilaahay dartiisa idinka tahay oo dhaartii aad sheegayseen iyo ramadaankii iyo soonkii aad soomanaydeen ay dhab idinka tahay waxa weeye ninkaas marnaba ha ansixinina ka fogaada haddaa ansixisaan ummaddii Soomaaliyeedna waad khiyaanteen awlaadiinnana waad khiyaanteen naftiinnana waad khiyaanteen dalkiinnana waad khiyaanteen khaa'imiin baad tihiin maxkamad baana laydin soo saari doonaa maalintii jaaniskaas laydinku helo in allaale inta aad ka kooban tihiin maxkamad sugayaal baad noqonaysaan warkaygaas meel ku qorta intiinaas khaa'in waddan baa wadatiin inta ay markaas dowladdaas ay ka koobnaatana kulligood khaa'in waddan waa ilaahay ka baqa raalli kama nihin ahlu sunna wal jamaaca waxaan leeyahay ahlu sunnoy fadhiga hortooda ka kaca waa laydin tijaabinayaa ma nooshiin mise waad dhimateen waxaa way laydinku tijaabinayaa ma isku xiran tihiin mise waa kala furan tihiin waa laydin tijaabinayaa caqiidada aad sheeganaysaan ma dhabba mise xoogaa yaroo laydin dhiibaa idinku filan oo idin kala diraayo waa ayadana waa tijaabo wey waxaan marka idin sheegayaa oo meesha ku jira shalay umul markuu imaanayo Muqdisho umul oo zaa'ira oo Muqdisho u socda oo lacag 300 iyo intaasoo kun oo dollar wada oo dad abaar iyo yani duufaano iyo biyo iyo fatahaado iyo dhibaatooyin ku dhacay dhaqaale u soo aruuriyo wada oo haddii alla ku leeyahay Muqdisho yimid waxa weeye adinka oo ilaawo iyo luglaawo ah oo qof laga soo tagay aysan jirin iyo habar iyo gabar iyo wiil iyo oday iyo wadaad iyo midna aan laga soo tagayn iyo xerow baad soo yaacdeen waad ogeydeen waxaad dhigteen mudaharaad yaab leh baad dhigteen waxay dhacday inuu madaxweynihii idin dhageysto maxamed cabdullaahi farmaajo inuu idin dhageysto baa dhacday sababtoo tahay qofku markuu madaxweyne yahay ama shacabku madaxweyne u noqon ama shakhsi buu madaxweyne u noqon hadduu shacab madaxweyne qofka u yahayna shacabku dhageysan madaxweynuhu hadduu shakhsi madaxweyne u yahayna ma dhag jalaq u siin maayo marqaataa qof walba ka yahay madaxweynihii inuu markaas ahlu sunnihii la hadlay ayagoo meel fadhiyo xataa telefoon u diray uu raali geliyey oo weliba uu yiraahdo umal uu ka kansalay yacni isu soo bixi iyo muxaadaradii uu rabay iyo wixii oo dhan la kansalay maxaa yeelay fidnada waxa weeye in la dhageysto weeye shacabka iyo warka ay rabaan marka shalay waad kacdeen waad baxdeen ciddii shalay idin soo abaabushay idin soo kicisay hadday ahayd wax qalbigiina ka soo go'ay iyo hadday ahaayeen dad ashqaas oo damiirka inta kacshay idin soo kiciyey intii niiba shaqadii shalay qabateen maanta waa la idinka rabaa tii shalay qabateen maantana waa taagan tahay laakiin haddaad maanta aad dhaqaaqi weydeen shalayna aad yacni ku kacda nin zaa'irahoo iska socdo oo inta yimaada iska baxayo baa yacni waxa weeye ilaawo iyo luglaawo ku kacdeen mid ilaa yacni aakhiro laydin yidhi ha idin dul taagnaado ooba la idinkaga dhigay arrimaha diintiinna oo laydin hor istaajiyey haddaad dhaqaaqi weydeen hadda timir laf baa ku jira fartaas ninkii garanahaya marka adinkuwa fasirta saa rabtaan u fasirta laakiin arrinkaasu waa khalad arrinkaasu macnaha ma ahan wax ka turjumaya caqiido tii shalay iyo tan maantana wax ay ku kala duwan yihiin tanaaba sii dhib badanba ninkii ummadda laayay oo qoriga degta u surnaa oo dadka la gowracayay dul taagnaa oo amrahayay oo falilaahi alxamdu leh
maanta boqolaal baan dilnay lahaa haddaad wax ka dhaqaaqi weydeen ka dhidhin weydeen hadda markaasu macno kalaa soo baxayo macno kale waa soo baxayo inayda caqiido ka turjumayne ashqaas aad ilaalinaysaan dad wejiyadooda aad ilaalinaysaan dad aad dhowraysaan aad leedihiin yacni magaciisi baad noqonaysaan marka caqiidadu waxa weeye laa yakhaafuuna lawmata laa'im qofka inuu noqdaan rabaa qof yacni mid dagaalama dagaalkiisa inaadan ka baqin caqiidadu waxaa la rabaa in laga run sheego sheegasho maahan caqiidade ka run sheegis weeye marka sidaasaa laynka rabaa hadday muqdisho dhaqaaqi weydo oo intii shalay soo bannaan baxda maanta ay soo bannaan bixi weydo oo lugu ay u laabanto haddee fasirkaasu fasir nooc kaluu yeelanaya waana idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha guulaysato midnimada soomaaliyeed ilaahay ha waariyo soomaali allah mideeyo yacni waxa weeye soomaali dad walaalo ah oo xigtay xigaalo ah wey waxaan rabnaa marka wax allaala wixii na dhibahaya inaan iska siibno wax allaala wixii wanaag iyo nacfi noo lehna ay noo joogaan intaasaa muhiima marka dadka nacfiga lahayn aan iska dirno wixii nacfiga lehna ha noo joogaan marka intaasaan ku soo koobayaa cafwan waana idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu